barasabka gobolka Sanaag oo ay weheliyaan maayirka degmada Garadag madaxa Marshuuca Cirigaab iyo Burco ayaa saaka soo kormeeray dhismaha wadada isku xidhaysa gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer qaybteeda degmada Garadag taasoo saaka marisay Wargumbi kormeerkan oo saaka daarana uu kuurgelida habsami socodka dhismaha wadada ayaa dhammaan mas'uuliyiinta waxa uga warbixiyay sida ay u socoto wadadu injineerada iyo mas'uuliyiinta gacanta ku haya dhismaha wadada iyagoo arrinta ka hadlayna waxay dhaheen mas'uuliyiintu sida tan ay u jirtaa Garadag حق ولامدو وحوي 1 كيلومتر يا بد ان شاء الله باذن الكريم waxa lana bishay intaan dhamaan horta la soo xiro gudoomiye ruuxantii aad baan ugu faraxsanahay booqashada nagu soo booqatay oo ay tahay markii ugu horeysay waliba iyadoo si kadis nagu noqotay wuxuu ahaa waxa kale oo aan yar doonayna kaaga warbixiyo saddex side ee shaqadu ka kala socoto kulli waxaan filayaa inaad soo martay side waa side garka oo u soo jahaysan bari arkaawadu noo dhameystiran tahay runtii daamurka karasharkiiyo maanta aanu jecelnahay waliba inaad noo raacdo oo la istaaray inaad nala soo aragto insha Allah biidna kariim oo karashar aanu isleenahay wadada inteeda ugu badan waxa ay nooga taagneed caqabad waxa ay karashar oo xajay imika waxa weyn muddo 2 wiiga habeen raar ma seexanayn si baalka looga hawlgalay imaanshaha barasabku waxay ku galista shaqada ama xaaladda dhabta ee ka socota halkan ma yahayn ama ma oran karo si official aan u ballanay macnaheedu waxa weeye gudoomiye shaqaalihii wadarkaysa shaqadaas ay wadaan waxay ku shaqeynayaan salaada maqrib ka baxaan waxa uu injineerku kaaga waramay inay 3 kaam ka socoto shaqadan daamirku iyo finalku dhameystirkeedu garka iyo tuurka iyo halkan waxa kale oo noo dheer laba karakter midna uu ku yaala Garadag midna kii qalabkiisa imika ina dhaafay yahay oo barkada cali xirsi lagu rakibayo wadadu 60% inta badan waa ciida 30% waxa weeyaan shayga iyo daamirka waxaan oran karaa 62% imanka waxa weeyaan way dhamaatay muddada inta yar ka hadhay wadada inta ka hadhayna waxa weeyaan shayga iyo daamirkaas gacantan ku haynaa waxaan oo qorsheysan insha Allah ta'ala inaanu wadada ku dhameystirno sanadka inta ka dhiman hadii ay naga raacaan 2 bilood inay naga raacdo insha Allah bismillaah kariima sidoo kale barasabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa isna halkaasi ka hadlay waa tiimka isku xidhan ee injineerada ee dhalinyarta u badan ragga odayaasha ee kale ee jooga iyo dhammaan hawlwadeennada kala duwan ee halanku mashquulka ah shaqadan ku mashquulsan taa waxa ka muuqata ismaamul isku xidhan iyo dad daacad oo habeen iyo maalinba shaqeynaya halkan joogan si official ah jidkan ugu soo degino lama hadal injineerada waxay hadda ka dhawaajiyeen maanta loo ka horeysay yiraahdeen mar reedi kama maqnayna mar walba jidkan wan mareeyay talaabo kasta oo qaadaana waan la socday hadda 20 maalmood oo idinka maqnaa awgeed baa sababtay inay dhacdo maanta loo dago balintaad maqnayd wixii qabsoomay hal arko inta kalena waxa uu shaad ku mashquulsantiin iyo xaalad kasta oo meeshaad maraysaan waxaad idinkoon arkayna idin la socday maanta sida uu maareeyo sheegay idinkuma ciidan u sii sheegay ma jirtay waxaan idhi Garadag baan ugu weynaa mar waa jidkii soo eegaynaa ma ogeyn idinkoo mashquulsan oo shaqadii aad u idmareydeen ee qarankan u matalaysan jidka aad u dhistaan idinkoo dadna istusaynin dar ilaahay aad u shaqeynayeen baan idinku nimi sidii ugu qurux badnayd idinkoo wada adigoo mishaar qaadanaya ayaa hadana shaqadaad qab waa madar sare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag